markay arkeen degmada gaalkacyo markay arkeen yacni dagaalkaas guraceel lagu soo qaaday ee weerarka ah ee gardarrada ah ee dulmiga ah oo ay isku bahaysteen axzaabta caqiidada u bedelay dagaalkan ma ahan sidaa moodeen ma ahan dagaal wadaadadaas iyo ka dhaxeeya kali ah iyo galmudug dagaalkan kuma jirto waa dad waxa gacantooda ka bixiyay gacan ka shishaysa ee caqiida ka dhimanaya marka ahbaabil kiraam waxaan ii sheegaynaa dagaalkaas in la joojiyo haduusan joogsana inuu wajkaas ku soconayn ilaahi subhanahu wa ta'ala dadkan waxa weeye mu'miniinta waa hal jasad qof inta la dulminayo qofka kale inuu u dul qaatana ma noqonayso waxaan u sheegayaa dadka ahlus sunnada ah ee adduunka daafihiisa ku sugan nabigu wuxuu yiri qofka daalimka ilaahay hal mar buu ka arsadaa laakiin qofka madluumka u gargaari kara aan u gargaarin ilaahay laba goor buu ka arsadaa nabigu wuxuu yiri unsur akhaaka daaliman oo madluuman xadiid kale walaalkaaga u gargaar haduu daalim yahay u gargaar haduu madluum yahay u gargaar waa la weydiiyay nabiga haduu madluum yahay waa la gartay haduu daalim yahay see loo gargaar gacnaha la qaban haya anagu maanta haday daalimiin yihiin waa u gargaari lahayn oo gacnaha ka qaban lahayn laakiin waxaan ognahay gurigoodii ayagoo jooga ee caalamku fiirsaday sida loogu soo dhaweeyay iyo sida loo rabay in hadda weerar lagu soo qaaday oo heshiiskii markay ku dhawaaqeen la yiri in gurigeena ka baxdaan waxa dagaalkan waxa weeye dagaal gardarra cad ah oo nimankaas caqiidadiisa loo socdo dadkii ay ku soo dhaweeyeen guraceel oo ayagu markii hore fardaha ku soo dhaweeyeen way dadku ku soo duulay waxa mahmaaya carbeed ah samin kalbaka ya akulka eegaaga cayili markaas dib ha ku cunay waa arintay ayagu isku sameeyeen nimankay ayagu soo dhaweeyeen way nimanka sidaan hadda u galahaya marka ahbaabil kiraam waxaan idin sheegaynaa dagaalkan sida ahlu sunna dadka qaarkood dadka halmaansina ay u aaminsan yihiin inuu san ahayn dad baa waxay leeyihiin al qaatil wal maqtul huma fi naar ma ahantaas qofka labada muslim markay labadoo weerar yihiin weeye ama shay adduunyo ay isku haystaan nin gurigiisa god uga qodan yahay ee la walaalo iga joog oo la leeyahay waa la weeraraya waa la soo qabanaya ee dadkii heshiiska ku dhawaaqay aan kala xiro ognahay ma ahan xadiidka looma dalilan karo nabigu wuxuu yiri man qutila duuna damihi fa huwa shahiid يعني قفكي ديجيسا كوسو قال دراسو ديجيسا دفاعي شهيد وي marka ahbaab الكرام waxaan ogaanaysaa oo anagu labadana gadimaanta aan ku ballanay inaan dagaalkaas hadaan la joojin inaan soo galayna kana qayb qaadanayno intaas ku soo gaabinayo assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh